عبد السلام يا ما سنتهاي هذا واحد سووناي حرunta golaha baarlamaanka kulankii baarlamaanka ayana maanta jira hadii Allah wada loo qado maxaa loo hadli doonaa maanta kulanka baarlamaanka Soomaaliya ay ku yeelanayaan xarunta golaha shacabka magaalada Muqdisho عبد السلام warar hadda helinaya sheegaya in la kulanay looga hadlamo ma baarlamaanka hortiisa rabo wasiirka cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya Abdullaahi Ahmed Elkachir si su'aal lagu weydiiyo guddiga garsoorka waxyaabaha ay sheegay sidii loo soo doortay waxyaabaha ay qaban doonaan iyo waxyaabaha haddaba ay sheegay intii magacaabnaayeen ay qabteen waan gartay ka waran qabaqabada mudanaasha baarlamaanka Soomaaliya oo hadda iminka xarunta golaha shacabka soo gaaraya bal iga warbixi marka hore waxa ka soconaya xarunta golaha shacabka magaalada Muqdisho runtii Cabdisalaam qabaqabadii Maxamed Cabdisalaam qabaqabadii ugu dambeysay ayaa socota طبعا xilli qabaan ayaa lagu jiray oo dadku waa yani mas'uuliyadu waa ka yani kala daahayaan balse hadda qabaqabada ugu dambeysay ayaa socota goorro adiga 5 saac in ma koorba inuu furmo kulanka ayaa la rajeynayaa maantana si yani dooda way dheeraad doontaa sida warar hadda ay sheegayaan wasiirka ilaa iyo 6 su'aalood ugu yaraan ayaa maanta la weydiinaya oo ku saabsan guddiga garsoorka oo dhawaan la soo magacaabay magacaabistooda waxyaabaha uu qabsoomay waxyaabaha ay qaban doonaan iyo hawsha horta loo adag si ay u maalmariyaan hadii Allah uu wada qadaro waxaan la rajeynayaa in wasiirku waa sabab u yimaado sida hore loogu ballamay oo maanta su'aalaha baarlamaanka ay weydiin doonaan uu sheego waxyaabihii uu soo qabsoomay si guddigan loo soo magacaabay iyo waxyaabo kale